صحراء waa la yimid waa run waxaan maqlayaa habeen dhow anigoo magaalada jooga niman bidca ah safiina laqbaynay dhagaygan ku maqlay ragana maqlaan waa laga yaabaa idoo safiinihi la akhriyo dal sheekhna laga ma soo akhrisan oo lama yaqaan ujeedda uu meeshaas ku jirta kitaabo u gaar ah dadka ahlu bidca oo akhrisan jireen oo dadka ku gaalaysiiyaan waxa dharkeena in safiinihi la akhriyo waa hawl cusub oo nagu soo korortay saas qaba bidda ana maqlay ya saas oo qaba midig ورأيي marka waxay dhihi jireen waa ra'yi fiqiga dadka uga digi jireen ra'yi waayay dhihi jireen meeshaas qolada badaraan marka maqlay waa dhex ka maqlay waxa asiri waa kitaabka meesha waxa meesha laga sheegay safiinihi maya haddana waxaan ka maqlay kii kale oo dadku naar qaba u bixiyeen oo ku yaala isbitaalka weyn agtiisa wala soo galay hadaa si dhihi lahaydaan xataa kitaabii culimada kitaabihi wala isla soo galay xataa waxa la yiri kitaabka dadku rabaan ha loo akhriyo ha lagu soo dum marka nimankaasna waxa Soomaaliya dibka ka jira iyo qaraxa iyo dhibaatada iyo waxa ay aqoondaas waxa ka yimid isu sheegamayno waa wax la og yahay aan iska ilaalino awlaadanada iyo waxa laga yaabaa inay xataa meelaha qaar dadka qaarkood ay adduunyo ku soo jiidaan wax siin iyo ay yiraahdaan waxa la siiyo inkastoo deeq daran yihiin oo wax ka bixin haddana waa laga yaabaa mararka qaarkood inay adduunyo adeegsadaan marka adduunyo waxba ku tarimaysa dad aakhiro weydo caqiido beesh dad caqiido beesh waxba kugu tarimayso marka walaalayaal hadda waxa weeye xilli adag baan joognaa xilli hore dhibaatadan iyo waxaanu soo bilowdeen haddaarna meeshii ugu xumeed bay maraysaa wax lagu badbaadi karo waa ilaahay inaan ka boqno subhanahu wa ta'ala wax lagu badbaadi karo waa cilmiga iyo taqwada dadkii wanaagsanaa ahlu khayrka ahaa adduunyay fiiriyeen xumaanteedii bay arkeen waa isaga tageen aakhiray doorteen saasa anagana nala ka rabaa mashaayikh iyo dad wanaagsan iyo dad ahlu khayr waana noo hormareen waana noo horeeyeen kitaabihina way yaalaan waxaan isu dardaarmaynaa ilaahay inaan ka boqno subhanahu wa ta'ala حسن دارمين أم حبذا النبي أن صوبان صلى الله عليه وسلم إيمان قفكي أن نبي جعله صلى الله عليه وسلم عليه إيمان ملحن هكر هذه النينا وحن مركز صدر دارمين إلهنا إن كبغنا سبحانه وتعالى بحالك نبي قلنا وقتنا صلى الله عليه وسلم عليه أن وقتك أنت نار من وقتك وحوي قف أنتو جوجا يا إلهي بايقانا وقتك النور من أنا أسكن مشغولين وهذا اللي أسكن مشغولية علومتان كلهم مادية أو حاجة الدنيا اللي جرت سدا وقتك أد لو قولهم إياه أدي لو قد ذاله ولا لا يالو علمي النبي قلنا وقتك صلى الله عليه وسلم عليه أو يري ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة قفك قاعدة وضأ كضل بيا علمي كرهت سنة إلهي وحي أسهل يا طريق يا ودج النبي قارسيدو النبي صلى الله عليه وسلم marka masaajidka u soo socoto ama madrasada quraanka ka baranayso ama aad madrasada u socoto kitaabka ka soo dhageysanayso dariiqaas qaadida aad qaaday sababta ay Ilaahay wuxuu kugu sahlayaa dariiqi janno waxa ka weyn raadinayna maxay taas aan insha Allah ku dadaalno إلهينا أنك بقنا طابت كان كوحل يرهذا أن لازمنا نبينا صوبا صلى الله عليه وسلم عليه تضبعت مر أما بقول مر أما وحكى بدن ويوم كان نبي إلهي استغفارنا أو توبت كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذنبنا ملهنا وأن أقنا يصير عم بيض بيهين معصوم أيها وما حي والتشريع يجدين وأنك نوجدين أنك وحنا هذا الذنب بدن أو هذا بحمان كذا عيسون إسهنكرن وضعت النبي نوجد صلى الله عليه وسلم عليه إن الاستغفار إنه المرء بالإلهي دم دافع ويدي سنة مدة كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه ساعات بساعات كدم بيد ترقي أي سمين وكرن غني ودلع يا النبي صلى الله عليه وسلم عليه مركز عبادتي هو وسعدي هو وليمت وتقصير أركي النبي صلى الله عليه وسلم عليه إنه مارت سيدي الرباعي سنهين مركز استغفارني وحامرك نويا ولا ليال ما أنت وحوي قفك أن الله اسكم مساجين أسوي إن الترين حق وعديه طريق وأنه عديه النبي قال نوع عديه صلى الله عليه وسلم عليه أصحاب الرسول الله بأن نوع عديه صلى الله عليه وسلم عليه تابعينتي أتباع تابعينتي مشايخ ذي أي أنه عديه
dariiqaasaan ala ka rabaa inaan marno waxba yaanaan fakarka adduunyada isku badinin qof walba waxa weeye waxa u dambeeyda geeri nolosha aan noolnahay waxay ku soo dhamaanaysaa geeri waxaa liibaanay qofkii inta adduunkan uu joogo daacada ilaahay ku dadaala subxaanahu wa tacaala